madaxweynaha dalka Soomaaliya oo xalay soo gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya kadib socdaalkii uu kaga qayb galay shirkii madaxweynayaasha dalalka Yurub iyo Afrika ee dhawaan ku soo gabagaboobay magaalada Brussels ee dalka Belgium ayaa maanta kulan la qaatay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta kaasoo ay kaga wada hadleen adkeynta xiriirka labada dal. waxaa sidoo kale madaxweyne Xasan Sheikh uu kulamo la qaatay safiirada midowga Yurub u fadhiya dalka Kenya taasoo uu kaga warbixinay waxyaabihii ka soo baxay shirkii Belgium ee dhawaan soo gabagaboobay oo madaxweynuhu ka qayb galay. wasiirka arrimaha dibadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa warbaahinta uga warbixiyay kulamada madaxweynaha kadib waxyaabihii uu kala hadlay madaxdii uu la kulmay. halkan waxaa la yimi Nairobi maanta oo ay madaxweynuhu saaka bay yimaadeen waxa la baan waxa laba arrimood baa ayaa madaxweynuhu ka galay wada hadallo mid waxa weeye isaga iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo isarkay saaka ilaa saaka aroornimadii ilaa iyo goordhaweed way wada joogeen goordhaweed macnaheedu yahay ilaa labadii 10 marka laga bilaabo ilaa labadii way joogeen marka hadda waxa ay ka hadlayaan waxa weeye cilaaqaadka labada wadan ka dhaxeeya labada wadan Kenya iyo Soomaaliya waxyaalo fara badan baa ka dhaxeeya xuduud baan leenahay ama ka badda ha noqdo ama ka bariga ha noqdo dad fara badan oo Soomaaliya ba halkan degan marka arrimahaas la iska wareys magaalada Muqdisho mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa fadhigoodii maanta waxay kaga doodeen howlgalka lagu xureeyay magaalooyin kamid ah dalka Soomaaliya iyo sida dawladdu u maareysay maamulada loo sameeyo gobolada iyo magaalooyinka dalka. mudanayaasha baarlamaanka ayaa u yeeray wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya Dr. Cabdullaahi Goodax Barre si uu uga jawaabo su'aalo quseeya xafiiskiisa. Axmed Nuur Cali Maxamed ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho. xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay kaga doodeen magacaabista maamulada degmooyinka ee gobolada dalka Soomaaliya iyo sharci uu hore baarlamaanku u meelmariyay oo la xiriiray maamul sameynta degmooyinka iyo gobolada dalka oo xubnaha baarlamaanka ee kulanka ka qayb galay ay sheegeen in ay hareer martay xukuumadda Soomaaliya. xildhibaanada baarlamaanka ayaa sheegay in loo baahan yahay in dawladda Soomaaliya ay si degdeg ah maamul ugu dhisto goobihii dhawaan dawladda iyo ciidamada amisom ay kala wareegeen xoogagga al-shabaab si dadka degan halkaasi ay u helaan maamul madani oo ay la macaamilaan. si shacabkii iyo ciidamadii qabtay wadanka si loo kala dhexgalo waa inay helaan maamul la shaqeeya markaas shacabkii ila kala kacay dadkii gaajaleysay waxaa la rabaa shacab la shaqeeyo anigoo la yaabanahay xildhibaanada leh sharciga ha lagu socdo sharciga lagu socona waa soo saara gudoomiyaha sheega dadweynaha soo baxay gudbinay oo madaxweynihi uu ogolaaday oo la rabay inuu dhaqan galo la baarmaray waxaa soo jeedinayaa meeshii aan ka abaari lahay waxaan ku talinayaa inaan ka abaarno inaan soo saarno qaraarkaasoo difaacaya sharcigii aan soo saarnay isoo taagayana sharci darrada lagu dhamaayo annaga sharciga aan sixnay inuu meel maro degmooyinka iyo gobolada la xoreeyey annagoo ku faraxsiista loo xoreeyey jecelna in maaragtay lagu soo celiyo xasilooni annagoo taas jecel taas waxaan ku talin lahaa dadka xildhibaanada maalin walba waxaan la warsanaya sharciga annagoo noo kale aan ansixnay ayaa shacabka warsanayaan. xildhibaanada baarlamaanka qaarkood ayaa waxa ay dhaliileen qaabka xukuumaddu ay u doonayso inay u magacaawdo maamulada degmooyinka iyo gobolada dalka Soomaaliya waxaana gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdulla Cawad oo shir gudoominaya kulankan uu xusay in maalinta berita xildhibaanada uu hor imaan doono wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdullaahi Goodax Barre si loo weydiiyo su'aalo ku aadan arrimaha ay baarlamaanku ka doodeen. وشعارها إنه شوار الدور وفي شعر عامة عامة وحول سنة الدور عدو وزيركو وسعر عسل وغير ومغل غيره ماشو شعر الله وشعر يعني حاسم وقارئنا هذه كرة كل بعض الرابط وقصص صار الدورة إلى وقتين نحن على مشاكل الكنسة
dhanka kale mahad cabdalle cawad gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa gabagabadii kulanka sheegay inuu gudoonku gacanta ku hayo muushinno badan oo xildhibaanadu ay ku dalbanayaan arrimo kala duwan isla markaana maalmaha soo aadan laga doodi doono